xiriir dhexmara si buuxda Puntland iyo Somaliland oo 20kii sano ugu dambeeyay siyaasado xilliyadoodii la oran karo hadda waa gaboobeen oo aan sii shaqeynayn ay dhex yaaleen tusaale shalay Puntland waxay u taagnayd Soomaaliya federaal oo mid ah Somalilandna waxay ku khasbaysay inay qaadato federalismka oo aysan go'in xafiis walba ayada waraaq la taagnayd Puntland Sool iyo Sanaagna waxay u haysay oo dhismihii Puntland loogu soo daray inaysan Somaliland go'in maanta siyaasadahaasi waa gaboobeen Somaliland tilaabada Puntland qaaday waxay kaga jawaabtay ayaduna inay Puntland kala dagaasho xamar oo aysan ka ilaaliso siyaasi reer Puntland inuu madaxweyne Soomaaliya noqdo inta awoodeeda ay loolanka gasho dhinaca kalena dagaal toos ah dhex mariyay oo xabad ah siyaasadahaasi hadda waa gaboobeen waxa loo baahan yahay hore in looga socdo Soomaalidii shalay Puntland raadinaysay oo ay rabtay inay isku hayso oo federalismka ku hayso waa shaqeyn weyd federalismkiina waa shaqeyn waay Soomaalida inay mid si ahaato qaran si ahaatana macquul maahan hadda wixii ka dambeeya siyaasad gadmaysa maaha xalku wuxuu iskugu soo ururay Soomaalidu inay kala tashato shalay markaadaan Somaliland loolan kula jirnay ma go'i karto federalismka maanta waa ka guurnay Puntland iyo Somaliland waa nabad nidaam baa ka jira dimuqraadiyad bay sameeyeen horumar intuu la ekaado haba yaraadee baa ka jira sababtoo ah waysan haysan aqoonsi caalami ah horumar badan ma sameyn karaan mashaariic waaweyn ma sameyn karaan laakiin waa dadaaleen koonfurna nidaamkii la geeyena waa ku baaba'ay waa ka shaqeyn waay nidaamna kama dhalan nabadna kama jirto 70% argixisada gacanta ku haysa ciidan Afrikaan oo 20 gaarayna waa jooga 20 sano kuwa kalena hadda lagu soo daabulaya foolxumada qofka Soomaaliga haysato oo lagu ceebeeyo adduunkana waxay ka timaadaa koonfur kala qaybsanaantooda waa fursad badan siinaysa xamar laakiin hadday midaysan yihiin oo ay isla jaan qaadaan labada deegaan iyo labada maamul iyo labada dawladood wax dan u ah bay gaari karaan maantay tilaabadaas labada madaxweyne sameeyeen ee maxaabiista la isku dhaafsaday waa furihii arintaas mar dambe la isku humbalin maayo cadaawad laga shaqeyn maayo kharash gelin mahayno nacayb iyo xumaan nabad iyo horumar baan gelinaynaa waxaan filaynaa inay kulmaan saraakiisha ammaanka wasiirada ganacsiga marka dambana ay kulmaan labada madaxweyne heshiis rasmi ah u dhexmara Somaliland iyo Puntland oo wax wada qabsi dadka dhaqankooda marka fiirisay waa labada deegaan oo iskugu dhaqan dhow 90% labada dhaqan ee labada dad aad buu iskugu dhow yahay